maanta waxaan ku hayaa darad waxaa ka hadalnay fanaanka Sharmaboy wacdarooyinka oo ka dhigayay gobolada waaweyn ee Djibouti ay ka koobantay laakiin wixii waxba soo dhaafay shalay oo Arbaca ahayd oo ugu dambeysay meel uu ku qabanayay ololihii ayaa waxa soo jabsaday dadweynihii meesha joogay iyagoo raba inuu qof walba oo sawir la gala Sharmaboy bal horta markuu ugu horeysa Cabdirasaaq oo soo wada daawano anaga iyo daawadayaashaba sidaas soo aragtay Cabdirasaaq waxdaradii dhacday waad aragtay meesha way soo wada jabsadeen dadka maxaa lagu tilmaami karaa dadka sidaas u badnaa ee taageera inta ilaa u muujiyay maxaad bal adigu kaaga soo baxay wallahi Cabdihaawd horta qof wali waqtigiisu taagay moogtaa Sharmaboy horta waa fanaan waqtigiisa xadarkan waa teamkiisi waxa ma yara xasuustay ciyaaraha caalamka kan daawin jiray garasa Cristiano Messi iyo waxa jira dad ku soo cararada marka maartay tarbuuqa marka ciyaarta la soo geliyo ama haafko kale aad yara xasuustay aad marka wallahi waxa lagu tilmaami karaa de taageeraanaba caadi ahayn Djibouti waxaan leeyahay talo tani wax bi yaqaanin garansa ayaan music de qaraamiga iyo xawasaas oo de life lagu hayso aad لكن بلاي باقي ما بلاوي لي بينو ما لها آد أي أجعلهن رير جيبوتي waxaa moodaa in ay tahay hooyga labaad ee fanka Djibouti aad bay u xiiseeyaan fanaaniintan aad bay u jecel aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq waxa kale oo aan ku jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo fanaaniinta qaar markii aad aragto way iska la weyn yihiin dadka kale oo ma jecla in ay sawiraad inta badan la galaan dadka faniska iyaga u ah sida aan ka warhaynana Cabdirasaaq faniska waa dadka koowaad ee adigan hadda waxa ay wax ka dhigayaan hadii aysan fanis aysan jir lahayn ama dadku xiiseeya hadii aysan jir lahayn way adkaan lahayd ama fanaan ahaw ama wax kale ahaw in aad soo baxdid way adkaan lahayd Sharmaboy markii ay taa dhacday kadib waxa la sheegay in uu dadka celinayo ku yiri daaya kadibna uu sawir la galay sida muuqaalkan hadda soo socdo aan ka daawan doono ee baldaawasho أبهن ملي إبا ملي حمان ملي أو عيبا ملي سيدي أبا حسن قولي دو كلي واقيسي كلي كشان كلي إيا قرب كلي سيدو كلي وسيدا كلي سيدا كلي سيدي كلي مدعضو هنقودانا دو كلي رجبو تدولكو ذا ديف ملي وحان تحتاقي واق waad aragtay sawiraad ayuu la galay dadka oo inantii waad aragtay inta in la eg ee ku qanacsanay maxaad isleedahay marka muxuu fanaaniinta kale kaga duwan yahay Sharmaboy horta Sharmaboy wallahi markii waan arkay isagoo meelaha streetka wadanka iska baraxda ku soo qoyay magaalada Djibouti joogay moohay fanaan qariyo waxa ay soo xaabta leeyahay jooga adigu waa qof bulshada iska dhex jira moogtaa wallahi ina horta Cabdihaawd fanaan aan dadka taageerista iska weyneen aad wanaagsan qofka soo taageeray dooro waxa wanaagsan inuu dadka taageero mar walba waqti siiyo waqti la qaato oo times iyada iyaguna kula baashanaysan wala baashanay Soomaa aad laakiin dadka badankood Soomaa xajira qofka dadka qaar din yar magac yeeshan iyo habelay soo diray haw ka yimi xitaa dadka qaar asxaabta xitaa ka dhunta jiro xitaa dadkii asxaabta qadiimiga ah xitaa ilaawba markii yar magac yeeshan aad Sharmaboy wallahi tusaale fiican weyn aad iyo ma sha Allah okay Cabdirasaaq waa maasantahay waxaana runtii ah in hadii aad fanaan noqotid iyo hadii aad youtuber weyn noqotid iyo hadii aad dhakhtar weyn noqotid wax walbo aad Soomaalida kaalin mugle aad ka gashaaba waxaan aaminsanahay Cabdirasaaq in ay ka dambeeyaan dadka Soomaalida ah inay ka dambeeyaan waxa qurux badan marka dadkii adiga wax ka dhigay oo adigoo aan waxba ahayn wax ka dhigay markii aad hortimaadid waxa loo baahan yahay in aad u muujisid inta ay iyaga kugu faraxsan yihiin in ka badan adiga ku faraxsantahay Sharmaboy waxaad moodaa kiligii ma ahan xitaa maslax mideey ku darno Cabdirasaaq sida aan aragno maslax mideey iyo Sharmaboy waa run ahaantii laba qof oo dhalinyaro haddana isla jaan qaaday sameeyay xitaa waxyaabo badan oo ay dadka kale kaga duwan yihiin tusaale ahaan waxa ay sameeyeen dadka hadii la isbahaysto in wax weyn la sameyn karo sida aad ka warhaysid Cabdirasaaq Sharmaboy markii uu tagay maslax mideey xamar isaga ku soo dhaweeyay Muqdisho markii uu tagay sida oo ugu kala kiciyay ama howlihii oo meesha uu tagay intuu filanayay in ka badan baa la gaarsiiyay waxa marqaati inoo ah فيديو وصوده مسرح مدي أيوه وحى وكلها رير جيبوتي وكع سيدة أنا جا مقدشة اللي جا كعوكل
waxaana maanta farxad weyn ah in fanaaniinteennii maanta aysan mid ka mid ah uusan qalbigiisa wax qabiil ah isku jirin. cabdihaabu kale jirta barso magaalada Djibouti oo laba baahsan baa ugu jira madaxweyne Ismaaciil Margeele aad loogu waraynaya waqtigaas saacadin oran karnaa fanaaniinta marka dhinaca kale laga eego وما أنا كنا نتنا شعبية كل قد بيجي مدري عبدها ما ولا حاجة شعبية كما هلنا وح أن كهلنا أي وحي تاي مركي إسكو حرمين تصالحنا مركي حمر تجين وكلته إن هست سووا ذقادين لبضودي جيبوتي كأمانيين عبد الرزاق سيدا كور هنا وقت الجامن أي وحي كوسا ما يصير إن داوش أنا مرنا بإن بقى أنا عادي هاي عبدها واحد لكن هاد صعبة جدا إن هرب منكم هذا النوع شيء هذا النوع كأني جيبوتي وحكيت شيء دورشين بحكي doorashooyinka xamaasad gooni watan qof kasta aasha ku haya caalamka oo dhan Soomaalida inta kale xataa ka baxsan Djibouti ayaa bulsho ku haysa madaxweyne Ismaaciil Margeele aad loo qoranaya runtii ma wada oran karno wax aasoo taageera maanta imkaan daawanay albaabka soo jibay Cabdihaabu sawirada geliyay may waxay wateen koofiyad oo akhtar ah sidaad arkaysana waa calaamad lagu yaqaano xisbiga oo ka soo jeedo madaxweyne taa kama hadlayno Cabdirasaaq ila fahanteed ayaa qurux badan waxaan ka hadlaynaa labadooda isku xirnaashiyahooga moodaysaa in ay sameeyeen horumar weyn oo xagga fanka ah iyaga ahaan marka loo eego ma ahan tii Djibouti tii aad aragtay oo heestii ay ka qaadeen xamar waad aragtay inta ay daawashada gaartay mana ahayn dad wallahi Cabdihaabu horta lama qeyban karo sabab loo qeyban kari sababtan ku qeyban kari waxa weeye hadda yarsan hore sheeg wax jooga meel oo ka socdo heesna way soo saareen Hargeysa markii maadaan jigjiga ay tagaan تورس أو كلا يوروب كوسو قبطان وكلا أيال أورن كرا هرت فنانتي ستوصا أما شعبي تسيب بدن بيسي عشان عبدهاوي واحد سنة حوا كل فاقة مركن حقيقة هذا اللي ويا أنت هاي ما أورن كرنا وقت حادث كنت تاس أو شعبي يدو بلايين أي شرم بوي يمصلح مدي يكل قد مال سوق كان إذا أنت ما أنت بقى هرجسي شوك قبطان أو هردان شوك قبطان تمقى هرجسي شو بيده مقالو كيا فرج فيسكو كله أكل حرمان وحلا أورن كرا واحد سمين شعبي بدن شيك كلا والله مد نيروبي كلا والله مد لكن ما أنا كرنا جيبوتي وكذا شعبي ما أنت كتاجني والله كتير من لقوا قيمين كرا ما هشر بوي يمصلح مدي أوكي عبد الرزاق أنا قاعد أركتين موظفين أكل تاجنا هاي إذن كانوا يدين دين دونا عد عبد الرزاق رأسا وفكر كاكو رأسا يعد أنا يصور راعي دونتو أو آمن سن إن إلا بعض الفنان يسبدل وين أي سميين مركل جربوا هيسا الله أيكو قادين أدبدو ما سنتي رسري عاد سموجية وأنا أركض دونا إذا كنت أنا ميلنا وحقلني سعدالة وكلا قاضيو أنت فيديو جميل لما أكون كل مدونا وحن إذا كيسي تجيا في أمان الله يسارك دمبوحي صله kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo waqti walbo ay diin tahay inta ay maalin u tahay maalin wacan habeen inta u tahayna habeen wacan inta aan soo toosina soo nabad toos halka aad nagala socotaan ama naga daawanaysaan waa channelkiina sariica aad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku maasantahay la joogaaga ee haddii aad fadlan ku cusub tahay channelka shaqadaada qabso subscribe saar كمبل كان فرها دي أد هورين ولا جوكتنا وما سنتاي فيديو كان لايك ريا وسي شير قلنا ولا أصحابنا ما أنتوا حقيقة جوجو عبد الرزاق بل عبد الرزاق أطلب السلام يا أصحابكم عن جنبك وحلي ما أنتك سوا حبيب سنة السلام عليك هذا ما سنتاي أنا كعقا قاعد بوس كودي أنت كعقا قاعد كثر ولا كعقا دونتا عبد الرزاق وما أنتوا حكوها يعني درت حكى هذا الفنان كشرم بوي وعد روينك وكل جاي قبل هذا واوين جيبوتي إيك قبلته لكن وحي وحبا صور دافي shalay oo arbaca ahayd oo ugu dambeysay meel uu ku qabanayay ololihi ayaa waxa soo jabsaday dadweynihii meesha joogay iyagoo raba inuu qof walba oo sawir la gala Sharma Boy bal horta marka ugu horeysa Cabdi Rasaaq oo soo wada daawano anaga iyo daawadayaashaba sidaas soo aragtay Cabdi Rasaaq waxdaradii dhacday waad aragtay meesha way soo wada jabsadeen dadka maxaa lagu tilmaami karaa dadka sidaas u badnaa ee taageera inta ilaa u muujiyay maxaad bal adigu kaaga soo baxay wallahi Cabdihaabu horta qof wali waqtigiisu taagay moogtaa Sharma Boy horta waa fanaan waqtigiisa maray xadarkan waa teamkiisa waxa ma yara xasuustay ciyaarey caalamka markan daawin jiray garasa Cristiano Messi iyo waxa jira dad ku soo carara marka maartay tarbuuq dib marka ciyaarta la soo geliyo ma kaafto kale aad yara xasuustay aad marka wallahi waxa lagu tilmaami karaa de taageeraan naba caadi ahayn Djibouti waxaan leeyahay talow
tani wax biyaqaanin garansa ayaan muusiga de qaraamiga iyo xawasaas oo de life ka lagu heeso aad iyo aad laakiin bilay baaga ma wala wili yaabino ma laha aad iyo aad ayay u jecel yihiin reer Djibouti waxaa moodaa in ay tahay hooyga labaad ee fanka Djibouti aad bay u xiiseeyaan fanaaniintan aad bay u jecel yihiin hadarka koowaad waxay aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq waxaa kaloo aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo fanaaniinta qaar markii aad aragto way iskala weyn yihiin dadka kale oo ma jecla in ay sawiraad inta badan la galaan dadka faniska iyaga u ah sida aanu ka warhaynana Cabdirasaaq faniska waa dadka koowaad ee adigan hadda waxa ay wax ka dhigeen haddii aysan fanis aysan jir lahayn ama dadku xiiseeya haddii aysan jir lahayna way adkaan lahayd ama fanaan ahaw ama wax kale ahaw in aad soo baxdid way adkaan lahayd Sharma Boy markii ay taa dhacday kadib waxaa la sheegay in uu dadka celinayo ku yiri daaya kadibna uu sawir la galay sida muuqaalkan hadda soo socdo aan ka daawan doono ee baldaawasho abehen male eebba male xumaan male oo eebba male sidii abba xasan gule doo kale waa geesi kale gashaan kale iyo garab kale sidoo kale waa sidaa kale sidee kale madaxdu ha noqdaan adoo kale reer Djibouti dhulkooda dhib male waxaan taxtagay waa waad aragtay sawiraad ayuu la galayay dadka oo inantii waad aragtay inta in la eg ee ku qanacsanay maxaad isleedahay marka muxuu fanaaniinta kale kaga duwan yahay Sharma Boy horta Sharma Boy wallahi markii waan arkay isagoo meelaha streetka wadooyinka iska baraxda dadka way galayaan magaalada Muqdisho joogay ma ahay finance qariye waxa ay tahay xaybta leeyahay jooga adigu qof bulshada iska dhex jiray moogtay wallahi ina horta Cabdihaab oo tanaan aan dadka taageerista iska weyneen aad wanaagsan qofka soo taageera ciidan dooro waxa wanaagsan inuu dadka taageero mar walba waqti siiyo waqti la qaato oo time siyada iyaguna kula baashanayso wala baashanayso Soomaa aad iyo aad laakiin dadka badankooda Soomaa waxa jira qofka dadka qaar din yar magac yeeshan iyo hebelay soo diray haw ka yimi xitaa dadka qaar asxaabta xitaa ka dhunta jiro xitaa dadkii asxaabta qadiimiga ah xitaa ilaawba markii yar magac yeeshan aad iyo aad Sharma Boy wallahi tusaale fiican weeyaan aad iyo aad ma sha Allah okay Cabdirasaaq waa mahadsantahay waxaana runtii ah in haddii aad fanaan noqotid iyo haddii aad youtuber weyn noqotid iyo haddii aad dhakhtar weyn noqotid wax walbo aad Soomaalida kaalin mugle aad ka gashaaba waxaan aaminsanahay Cabdirasaaqow in ay ka dambeeyaan dadka Soomaalida ah inay ka dambeeyaan waxa qurux badan marka dadkii adiga wax ka dhigay oo adigoo aan waxba ahayn wax ka dhigay markii aad hortimaadid waxa loo baahan yahay in aad u muujisid inta ay iyaga kugu faraxsan yihiin in ka badan adiga ku faraxsantahay Sharma Boy waxaad moodaa kiligii ma ahan xitaa maslax mideey ku darno Cabdirasaaq sida aan aragno maslax mideey iyo Sharma Boy waa run ahaantii laba qof oo dhalinyaro haddana isla jaan qaaday sameeyay xitaa waxyaabo badan oo ay dadka kale kaga duwan yihiin tusaale ahaan waxa ay sameeyeen dadka haddii la isbahaysto in wax weyn la sameyn karo sida aad ka warhaysid Cabdirasaaq Sharma Boy markii uu tagay maslax mideey xamar isaga ku soo dhaweeyay Muqdisho markuu tagay sida oo ugu kala kiciyay ama howlihii oo meesha uu tagay iyo intuu filanayay iyo in ka badan baa la gaarsiiyay waxa marqaati inoo ah fiideo uu soo duubay maslax mideey ayuu waxa uu ku lahaa reer Djibouti u kaca sida aniga Muqdisho layga kaco kale waxaana maanta farxad weyn ah in fanaaniinteeni maanta aysan mid ka mid ah oo qalbigiisa wax qabiil ah isku jiro Cabdihaab kala jirnaa barso magaalada Djibouti oo laba baahsi baa ugu jira madaxweyne Ismaaciil Wargeela aad loogu wareynaya waqtiga saacadina oran karnaa fanaaniinta marka dhinaca kale laga eego وما أقول كنا أنت نشعب بيد كل جد بيجي عبدهاوي ما يورا حاجة شعبية ده كما هلنا وح كهلنا أيام وحي تاي مركي إسكو حرمين تصالحان مركي حمر تجين وكليته إن هست يسوى ذا قاعدين لبضودي جيبوتي كأمانيين عبد سيدا كور هنا وقت الجامن أي وحي كوسما يصير إن داوش أنا مرنا بإن بقى أنا عادي هاي عبدهاوي واحد لكن حسب بجرته إن هر ممكن حتى نوع شيء حتى لو كأني جيبوتي وحكيت دورشوي ما كسبنا دورشوينكنا حماسات gooni watan qof ka saasho ku haya caalamka oo dhan Soomaalida inta kale xataa ka baxsan Djibouti ayaa ku shaqaysa madaxweyne Ismaaciil Wargeela aad loo qoranaya runtii ma wada oran karno wax aasoo taageera maanta imkaan daawanay albaabka soo jibay Cabdihaab sawirada geliyay may waxay wateen koofiyad oo akhtar ah sidaan arkaysana waa calaamad lagu yaqaano xisbiga oo ka soo jeedo madaxweyne taa kama hadlayno Cabdirasaaq ila fahantid ayaa qurux badan waxaan ka hadlaynaa labadooda isku xirnaashiyahooga moodaysa in ay sameeyeen horumar weyn oo xagga fanka iyaga ahaan marka loo eego ma ahan tii Djibouti tii aad aragtay oo heestii ay ka qaadeen xamar waad aragtay inta ay daawashada gaartay mana ahayn wallahi Cabdihaab horta lama qeybin karo soo ballan qeybin kari sababtan ku qeybin kari waxa weeye
haddeer san hore u sheegay waxa jooga meel oo ka socdo heesna way soo saareen hargeysa markii maadaan jigjiga ay tagaan